Soomaali waxay isku dishay oo dhibaatadan gaarsiiyay waa xukun Soomaa anigu waxaan idin sheegayaa aan wada hadalno anigu xukun ku soo noqon maayo 4 sano haysta 4 sano waxaan rabaa inaan noqdo nabadoon Soomaaliyeed intaas miyay gashiin inaan raadiyo dib u heshiisiintii dadkii Soomaaliyeed isku soo celiyo oo aan dadkii walaalayo yaan rabaa waxaan rabaa inaan noqdo ninkii raadinaya cadaalad maxaa yeelay Soomaali waxay isku dishay cadaalad darro oo laga baqaayo qof walba inuu qabiilkiisii u waaxdo oo wax gaar ah siiyo aniga meeshan Allah wuu xisaabtamaya 4 sano joogaya mana soo sharaxayo nomination daba qaadan maayo dadka rabahum guriyeenayo waxba hay jijiidin hadhow idinka imaan doona meeshan ay igala shaqeeyay aan igala dhisan meeshan waxaan ahay aniga madaxweyne dastuurka ay siiyay waa lay doortay internationalka ay ugu yaqaan laakiin waxaan rabaa inaan noqdo nabadoon idinkana nabadoon ila noqotaan oo aan raadino dib u heshiisiin dhab ah wajigii hore waa bedelaya marka waxa lagu dagaalay Soomaha kursi iyo maxaan ku raahdaa ana rabo kursi oo haysanaya ilaan dibka yaala wuxuu yahay oo ummadda isku dagaalaysa waxa way qofkii kursigaas qabta shaka laga qabaa ama kuwa xoogeystaa ama hadhow ka aarsada ama dhibaatada sii badiya wax la mid marka qof walba wuxuu isku dayayaa inuu lugta hayo marka ninkaas uu dhaqaaqin marka that's why warkaysan xukunkii jira ama xukunkii meesha taga inuu lahaado mucaarad fara badan ama shakhsi ha noqoto ama maamulaha ka soo horjeestaan